السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواad walaaleyna qiimiga badan oo channelkeena Zack Multimedia muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay su'aal aan kaga jawaabayo walaalaha ka mid ah kaas oo iga soo yar weydiiyay dhanka iyo social media gaar ahaan dhanka iyo Telegramka su'aashana waxay ahayd sida aan u sameeyay audio spectrumka haddii aad fahmi laadahay audio spectrum waa shay kaasi uu codka mar walba la yara dhaqaaqayo wuxuu iga soo yar weydiiyay sida aan u sameeyay audio spectrumkii muuqaalkii soo laabashada channelka in muddo ayaan ka yara maqnay ku dhawaad 8 bilood ayaan ka yara maqnay markaan ku soo yara laabanayay waa videogii ugu horeeyay aan soo post gareynayay ayuu walaalkani su'aashan iga soo yar weydiiyay sida aan u sameeyay xaqiiqatan shaygaasi marka ugu horeysay aniga ma aanan sameynin kaliya waxaan kala soo degay website-kaasi markaan kala soo degay Adobe After Effects ayaan yara geeyay kadibna meeshaasi ayaan ku badbadashtay xaqiiqatan muddo ayaan wax raadinayay sida ugu fudud ee aan idinku soo gudbin karo oo qof walba naga mid ah sida wanaagsan oo u sameyn karo isla markaasna waxa igu soo yara dhacday fikrad taasoo ah in projectigan aan ku gareeyo Adobe Photoshopka fikradaas markay igu soo yara dhacday waxaan si ku yara fikiray in projectigan markiisa ugu horeeyo aan ku create gareeyo Adobe Photoshopka ama aan ku sameeyaba kadibna aan u soo wareejiyo dhanka iyo Adobe After Effects sidaan wada ognahay waxaad leedahay sidee ayaa file loogu sameeyay Adobe Photoshopka kadibna loo yara keenaya Adobe After Effects dhammaan sidaan wada ognahay softwaradaas waxaa soo yara saartay shirkadda Adobe sidaan wada ognahayna shirkadda Adobe programmada ay soo saartay waxaa ka yara mid ah sida Adobe Illustrator-ka kaasoo aan ku sameysano logoska iyo waxyaabaha vectorska ah sidoo kale waxay soo yara saartaa Photoshop sidaan wada ognahay waa barnaamij kaasoo naga saacidaya inaan sawirada aan ku habeysano kalarkooda iyo waxyaabaha khaladaadka ku jiro si aan uga yar saarno sidoo kale barnaamijka kale waa Adobe Premiere Pro-ga sidaan wada ognahay waa barnaamijkaasi oo muuqaalka lagu editing gareeyo khaladaadkana loogu saaro sidoo kale barnaamijka afaraad ee hadeertan aan joogno waa Adobe After Effects kaasina inta badan waxay ugu talagashay in waxyaabaha motionska in lagu yara sameysto waayo barnaamij walbo meelba ayuu ku fiican yahay muuqaalkan waxaan doonayaa habka ugu fudud ee aad ku sameyn karto inaan kula wadaago anigoo waqtigaaga inta badan doori doono sida hadeertan aan kuu sheegayna projectiga waxaan marka ugu horeyso aan ku create gareyn doonaa Adobe Photoshopka kadib waxaan isla aadi doonaa dhanka iyo Adobe After Effects marka ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta hadeertan markaan u soo gudubno dhanka iyo computerka marka ugu horeyso waxaan soo furanaynaa softwarekeena Adobe Photoshopka markaan sidaan u soo furano sida ujeedo marka ugu horeyso sidaan ayaan u diyaariyay kan hal mar cancel aan iska yara dhaho dhammaan marka sidaad ujeedo waxaan ku yara arooriyay box marka qaabkan oo kale ayaan u sameyn doonaa anigoo hab fudud oon kuugu tusin doono ugu hore marka waxaan leenahay file si aan u sameysano new document kadib waxaan leenahay new cabirka intaan ka dooran doono waa 128720 sidaad meeshan ugu jeedo waa cabirkii thumbnail YouTube-ka kadib marka waxaan ku qoranayaa ciwaanka aan documentiga cusub aan u baxsanayo audio project kadib marka waxaan leeyahay create hadeerta markaan sidaan ugu sameyno marka ugu horeyso waxaan nogala baahan yahay inaan sameyno shape-ka ugu weynaay ileen sidaad meeshan aad ugu jeedo shape weyn ayaa meeshan ka yara sameysan oo markaasi wax walba dul saaran ugu hore marka waxaan leenahay audio projectiga ayaan dooranaynaa markaan audio projectigan sidaan u doorano kaliya waxaan leenahay shape-ka ayaan click-taan dabsiinaynaa rectangle ma ahan waxaan kaliya ku sameeyay render rectangle tool-ka marka hadeertan kaliya marka waxaan leenahay dhexda ayaan click ku siinaynaa marka cabirkaani ayaan meeshan gelinaynaa width waxaan ka yara dhigaynaa 962.3 sidoo kale hayaguna sidoo kale asagana waxaan ka yara dhigaynaa 529 kaliya marka hadeertan waxaan leenahay okay marka hadeertan aan okay aan dhaano marka sidaad hadeertan aad u jeedo inta ayuu naga yara tagay dhexda ayaan keensanaynaa ugu hore marka asaga iyo backgroundka anigoo controlka haya ayaan backgroundka click siinayaa qaybta layerska anoo joogo kaliya marka centerka ayaan keensanaynaa sida hadeertan aad u jeedo shape-kii hadda aan sameysanay centerka ayaan sidaas u keensanay marka qaybtan propertieska anagoo joogno kaliya waxaan leenahay in geesahani uu kasoo xoogaahir uu kasoo laaba ayaan doonaynaa kaliya waxaan leenahay 62 marka hadeertan sidaad u jeedo dhammaan waxaa nagala dhigayaa 62
haddii propertieskan aad u jeedi weyso kaliya warka waxaad leedahay windows kadibna waxaad kasii dooranaysaa properties meeshaas ayuu kaaga soo muuqanayaa marka kani aan iska diligareeyo propertieskani marka hadeertan kan sidaad u jeedo kaliya hadeertan waxaan u samaysanaynaa group waayo wax walba markaad habayso way kuu fududaanaysaa hadhow sidaad wax ku kala bedesho kaliya waxaan leenahay control G group ayaan gelinaynaa magacaan u bixinayn waa background sidaad u jeedo marka shape-kani color ayaan rabnaa inaan siino gradientiga ah waana sidaa u jeedo midkii hore markaad fiiriso wuxuu wataa laba color kan colorkani inta waa mid tiq ah colorkan inta waa mid xoogaa yar iska yara beebiye ah marka kaliya marka waxaan leenahay kani ayaan laba jeer waxaan ku siinaynaa click geeskani ayaan laba jeer click ku siinaynaa kaliya markaa deertan waxaan dooranaynaa gradient markaan doorano sidaa u jeedo gradientiga colorkani ayuu noogu siinayaa marka anaga colorkan hadeertan kama rabno kaliya waxaan leenahay meeshaas ayaan click ku siinaynaa markaan meeshaas aan click aan ku siino ugu horey marka waxaan sameynaynaa midkan ugu horeyso colorkan ugu horey ayaan furaynaa asaga ayaan dooranaynaa kadibna waxaan kasii tegaynaa dhanka iyo coloriska kani xoogaa hoos aan iska yara keeno marka qaybtan inta ayaa waxaad ku yara qoraynaa 302 B to D markaan colorkaas aan siino kaliya waxaan leenahay okay hadeertan colorkan jaalaha ayaan yara bedelaynaa kaliya qaybtani ayaan dooranaynaa kadibna colorska ayaan ku dhufanaynaa hadeertan markaan sidaan aan sameyno asagana waxaan ku qoraynaa 4E 4A 4F marka sidaa u jeedo hadeertan colorkii aan rabnay sidaas ayuu noogu yorosiiyey kadib waxaan leenahay okay kadibna meeshan waxaan kasii leenahay okay meeshan iska yara fiiri gradienti angle-ka aad isticmaalayso waa inuu ahaadaa 139 kaliya marka meeshaas ayaan ku yara dhaafaynaa kadibna waxaan leenahay okay hadeertan marka waxaan samaysanay backgroundkii ayaan yara habaysanay marka waxaan naga yara dhiman sidaad meeshan aad u jeedo botonadan inaan sameyno ayaan doonayaa hal kaliya ayaan idin tusinayaa kuwa kalena qaabkaas oo kale ayaan u samayn doonaa kaliya copy ayaan leenahay ugu hore marka ugu horeyso qaybtan iyo backgroundska ayaan waxaan ka abuuranaynaa new layer layerkan waa inaan ka saarnaa backgroundka sababtay tahay backgroundka shaqo kuma lahan backgroundka kaliya asaga groupkaas inuu ku yara jiro ayaan doonayaa kadib markaan deerto waxaan sameynaynaa waxaan tegaynaa qaybta iyo shabiska ayaan clickta ayaan dhab siinaynaa si oo noogu soo baxo waxyaabaha ku yara jiro kadibna marka waxaan leenahay ellipse toolka asaga sidoo kale dhexda ayaan click ku siinaynaa cabir gooni ah ayaa jiro 54 widthka sidoo kale 54 kadib waxaan leenahay okay marka meesha sidaad u jeedo waxaan ugula sameeyay shape-ka aan markaasi aan doonaynay sida hadeertan u jeedo shape-kani qaabkan ayaa loo sameeyaa mar alaale markaan sida u jeedo propertieska mar walba uu naga soo yargalayaa kaliya propertieskan ayaan soo qabanaynaa inta ayaan yara keensanaynaa si uu documentigani oo noogu yara khasin asaga marka ugu horeyso markaan shapeskan sidaan u sameynay oo widthka iyo highga aan kasoo dhignay 54 kaliya hadeertan colorkiisa ayaan yara saxinaa asagana kaliya waxaan tegaynaa dhanka iyo shapeska kadibna colorkaasi ayaan furaynaa oo qaybtan inta ayaan kasii dooranaynaa oo color gooni ah ayaan rabaa inaan siiyo colorkiis gooni waa 3C3C3C marka cabirka sidaas aan dhahno kadibna okay ayaan yara leenahay marka hadeertan sida u jeedo colorkan inta uu kaga duwan yahay ugu hore marka isaga kan aan dooranayno ayaan qaybtiisa layerska geeskan ayaa laba jeer click ku siinayaa markaan click aan ku siiyo kaliya hadeertan waxaan ku darsanaynaa drop shadowga wuxuu naga saacidayaa in uu hoos u sameeyo shape-kani ugu hore marka waxaan furaynaa qaybtan blend mode-kan waxaan ka dhigaynaa overlay ayaan ka yara dhigaynaa sidoo kale colorka waxaan ka yara dhigaynaa cadaan meeshan sidaad marka aad u jeedo opacity-ga sidoo kale waxaan ka yara dhigaynaa 49 sidoo kale angle-ka waxaan adeegsanaynaa minus 38 minus 38 markaan dhahno distance-gan sidoo kale asagana waxaan adeegsanaynaa 12 sidoo kale size-ka shaygan waxaan u rabnaa 16 sababta aan nambaradan aan u adeegsanaya waxay tahay oo hadeertan sixitaan fara badan ma gali karo oo waayo hore ayaan u soo qortayba marka hadeertan kani sidaan aan ku sameyno kaliya marka hadda shape-kan inta noogu yara samaysan waxaan ku yara sameynaynaa copy waxaan leenahay control J markaan control J aan dhahno sida u jeedo laba layer ayaa meesha nagula sameynaya backgroundka meeshiis aan iskaga soo yara xiro asagana sidoo kale log aan iska yara saaro waayahay
marka kani hadeertan midka koobiga ah ayaan drop shadowgiisa furaynaa. Waxaan furaynaa plain mode kadib waxaan kasii dooranaynaa normal. Markaan normal aan kasii doorano opacity-ga waa inaan ka dhignaa 58. sidoo kale colorkan iska yara fiiri, colorka aan dooranayno waa color xoogaa black ah. color black ayaan rabnaa. opacity-ga markaan colorka aan ka yara dhigno madow, opacity-gan aan kasoo yara dhignay 58. sidoo kale angle-kan waxaan ka dhigaynaa 130. sida ujeedo marka midkii hadaati cadaanka iyo midkan balaaga cagsi ayay isku sameynayaan. marka sidaas ayaan u doonayaa. sidoo kale distance-ga meeshan waa 12, waxaan ka yara dhigaynaa 11. sidoo kale size-ka sheegani waxaan u rabnaa 21. marka intaan aan sameyno hadeertan mid aad iyo aad u qurux badan ayaa noo soo yara baxay. sidoo kale waxaa aad iyo aad u qurxinaya in madowgani inta in aad ka yara dhigto 49 oo kale. kadibna waxaan yara leenahay okay. hadeertan shape-kani 2 jeer ayaan koobi gareynay, mar saddexaad ayaan haddana aan sii koobi gareynaynaa. Control J kadibna drop shadowgiisa ayaan furaynaa. markaan drop shadowgiisa aan sidaan aan u furno, ugu horeyn drop shadowgani xoogaa yar opacity-giisa aan iska soo yareyno. marka intaan aan sameyno kaliya drop shadowgii ama shape-kii saddexaad anigoo ku guda jirno ayaan waxaan dooranaynaa meeshaan ku qoran tahay bevel impose ayaad dooranaysaa. markaad yar doorato sidaad u jeedo wax xaglan oo sidaan oo kale ayuu ku sameynayaa. haddii aan ka yara qaadna sidaan ayuu yahay, haddii aan yara saarana sidaan. sidoo kale marka waa in iska fiirisaa in style-kiisa uu ku yahay pillow impose inuu ku yahay, sidoo kale smooth inuu meeshan ku tahay, sidoo kale down inay inta ku tahay. marka cabirkani depth-ga waa inay ku ahaataa 88, size-ka iyo softness-ka waa in labadaba ay ku ahaadaan 9. kadib marka waxaan yara leenahay okay. sida hadeertaan ujeedo dhammaan marka waxaan yara sameynay hadda button aad iyo aad u qurux badan ayaan sameynay. marka layerkan sare anagoo joogno ayaa shape-kii ugu horeey aan sameynay ayaan click ku siinaynaa. group ayaan ka wada dhigayna, waxaan leenahay Control G. kadib marka waxaan ku yara qoranaynaa kan waa button, waxaan leenahay kan waa button back. button backan sidaa ujeedo markaan sidaan aan u sameyno kaliya groupka oo dhan ayaa waxaan sameynaynaa Control J. Control J markaan dhahno asagoo dhan ayaan soo wada qaadaynaa, copy ayaan kasoo qaadanay. buttonka kale inta lahay ayaan sidaas ku yara siinaynaa. marka kan waxaan ku qoranaynaa button 3 line, waa button aan u rabo 3 line. kadibna isla groupka anigoo jooga ayaa haddana waxaan leeyahay Control J. marka intaan ayaan keensano. marka sidaad ujeedo kani waxaan rabaa color gooni inaan siiyo, kaliya play buttonkiisa ayaan furayaa. kadibna waxaan leeyahay midka ugu soo horeey, sababtay tahay layeradan kale way ka hooseeyaan, midka ugu sareeya ayaan double click ayaan ku siinayaa. oo waxaan rabaa gradient gooni inaan yara siiyo. waxaan leeyahay gradient-gan ayaan furayaa, kadibna electas ayaan furayaa. kadib marka meeshan sidaa ujeedo color noocaas ayaan siinayaa. adiga colorkaad rabto waad siin kartaa. marka meeshan waxaan leeyahay menis 174. kadib waxaan leeyahay okay. marka meeshan sidaa hadeertaan ujeedo waxaa ka yara dhiman lineska oo aad iyo aad u qurxinaya backwardkan iyo sida kan kuwaan sida loo sameeyo ayaa ka yara maqan. kaliya waxaa ka yara helaysaa shapeska. qaybtan ayaad furaysaa, kadibna waxaad kasii dooranaysaa custom shape tool. custom shape tool markaad dhahdo dhammaan marka inta ayay kugu keedsan yihiin, inta ayaad kasoo baxsanaysaa oo wax markaasi oo rafaad fara badan aad u maraysa ma jirto. tusaalahan hadda arrows haddaan dhahdo waa falaartan ayaan soo qaatay, falaartani ayaa sidaan oo kale ayaad leedahay, cabirkeeda intaas ayaan u rabaa. filkeeda ayaad furaysaa, kalar cadaan ayaan yarsiiyey. kadib marka falaarta dhankan inta ayay u yarjeedaa, inta ayaad usoo yarjeedinaysaa. kaliya dusheeda ayaa waxaad leedahay right click, hal mar click ayaad siinaysaa, kadib right click, kadibna waxaad leedahay flip horizontal. kadib waad soo yar qaadaysaa, waxaad yara keenaysaa qaybta sare ee middan. marka arrowgan hadda aan soo gelinay inta ma aysan lahayn, kaliya waad soo yar qaadaysaa. waxay lahayd back buttonka ayay lahayd, asaga ayaad kusoo yar duldeynaysaa. sidoo kale marka layniskan laynyada oo sidaan kan waxaan ku yara sameeyey. sidaa ujeedo meeshan calaamadan kale waxaad ka yara helaysaa iyadana qaybta iyo shapeska. kaliya markaad aad tagto audio projectigeena markaan ku yara laabano, kaliya aad tagto meeshan sidaa ujeedo inta ayaad ka yara helaysaa. waa 2 calaamad lisdul saari doono. waa kana shapeskan ayaad ka yara helaysaa sida markaan aad ujeedo. waa kan kaliya marka waxaan yara dhahay xoogaa yar
cabir sidaas oo kale markaan yara samaystay kadibna filkeeda aan furay kalar cadaan aan ka yara dhigtay kaliya markaan aan sidaan aan sameeyey iyadan waxaan ku sameynaynaa horizontalka ayaan yara saxaynaa markaan sidaan aan yara sameynay kaliya marka 2 jeer ayaan copy ka qaaday waxaan lahay control J markaan control J aan dhahay midka kale aan copy gareey ayaan xoogaa yar ka soo yara sakanayaa marka qaab sidaas markaan u sameyso kaliya labada layer ayaad waxa sameynaysaa kaliya waxaan leedahay size-kooda ayaad soo yareynaysaa marka shapeskan inta badan waqti kuma dhumin karno oo adiga waad yar saxan kartaa ayaan filayaa kan marka sidaad u jeedo xoogaa yar saan soo yarey qaybta centerka ayaad ka yara dhigaysaa marka qaabkan markaan sidaan aad u sameyso kaliya haddana kan ayaad soo copy gareynaysaa sidaas ayaad ku yara wadaysaa kan sidoo kale play buttonka asagana waxaan ku yara sameynay kaliya qaybtan iyo shapeska markaan tagno rectangle-ka aan yara furno kaliya play buttonka gudihiisa ayaan furaynaa waxaan leenahay kadib new layer ayaan leenahay kadibna waxaan dooranaynaa rectangle-ka kadibna waan kusoo yara jiidaynaa waxaan leenahay qaab sidaan oo kale ayaan rabnaa kalarkiis waxaan ka yara dhigaynaa cadaan 2 jeer ayaa copy ka qaadaysaa adigoo control J dhehaysid ama adigoo altiga qabanaysidba kadib marka labada rectangle ayaad dooranaysaa markaad labada rectangle aad doorato cabirkooda sidaas ayaad iskugu yara saxaysaa kadibna sidaas ayaad dhexda ku yara keenaysaa markaan intaad samayso kan sidaas oo kale asagana waad soo copy gareysanaysaa labada rectangle waxaa leedahay adigoo altiga haysid ama adigoo control J midba labadaba aad dhehayso hadda altiga ayaan leenahay kuwaan soo copy garey maadaama asaga kan ay tahay forwardkiisa ayaad garagelinaysaa labada calaamadoodna waxaad leedahay flip horizontal sidaan ayaad ku samaysay three lineska marka waxaad ku yara samaynaysaa oo inta aan ka yara siinay sida ujeedo three lineskaasi kaliya rectangle-kaasi ayaad soo yara jiidaysaa oo sidaas ayaad ku yara samaysaa sidoo kale marka waxaan rabaa laynkani dhexda ku yara jiro sidee ayaan u yara sameeyey kaliya marka waxaan tegaynaa qaybta sare oo gaar gurubyadan dhan aan iska soo yara xirno waxaan leenahay new layer kadib shapeska ayaan dooranaynaa khaasatan shapeka waxaan doortay round rectangle-ka ayaan yara doortay laynka click ayaan meeshan ku yara siinaynaa laynka dheer oo hadhow wax noogu socon doonaan waaye marka size-ka marka waxaan sameynaynaa width-ka waxaan leenahay 886.5 sidoo kale qaybtan high-ga asagana waxaan leenahay 8 kadib waxaan leenahay okay marka okay aan dhaano sidaad u jeedo laynka sidaan ayuu noogu soo dhexgelinayaa inta ayuu noo yara keenayaa marka cabir dhexda ayaad ku yara aadinaysaa marka laynkan hadda yartaan aan sameynay maadaama hadda new shape uu gooni uu yahay kalarkiisa waan bedelaynaa oo bagan kaliya marka shapeskiisa ayaan dooranaynaa kaliya fill kadibna waxaan leenahay kalarka noo yara bedel marka kalarka aan siin doono waxa weeyaan waxaan leenahay 23 kalar noocaasi ayaan u rabaa kadib waxaan leenahay okay meeshan sidaa u jeedo kalarkii aan rabnay meeshan sidaas ayaa noogala yara keenay sidoo kale asaga waxaan leenahay drop shadow iska yara macquula ayaad gelinaysaa oo sidaas uma badinaysid waxaad leedahay drop shadow kadibna waxaad leedahay drop shadowga settingskan ayaad sameynaysaa sidoo kale marka maadaama aan sameynay 2 jeer ayaan asagana koobiyeynaynaa waxaan leenahay control J markaan dhahno kaliya marka meeshan iska yara fiiri midkan hadda aan sameyn waxaan rabnaa inaan midkani aan dhexgelino kaliya alti ayaad qabanaysaa adigoo laba dhexda ka joogo kadib waxaad leedahay click ayaad siinaysaa marka midkan hadda aan wax dhexgelinay iyo midka wax la dhexgeliyey midkan waxaan rabnaa in aan kalar gooni aan siino 2 jeer ayaan click siinaynaa 23 kadib waxaan leenahay okay marka haddeertaan sidaa u jeedo laynkii sidaan u rabnay ayaa sidaan haddeertaan nogula sameeyey sidoo kale waxaan inaan gelinaa option iska yara macquul ah kaliya 2 jeer ayaan meeshaas click ku siinaynaa kadibna waxaan kasii dooranaynaa bevel impulse qaab sidaan oo kale xoogaar itmuuska aan ku yara badinin screenka xoogaar kasoo yaradhin waa midkani guduudka sare waaye kadib waxaan leenahay okay markaa haddeertaan intaani aan sameyno laynkii yariiska ahaay sidaa u jeedo markaa kan aan sameynay meeshan waxaa ku yara jiro layn yariis ah ayaa ku yara jiro sidee ayaa marka aan u sameynay kaliya marka waxaan leenahay new layer ayaan leenahay kadibna midka circle-ka ayaan dooranaynaa kaliya click ayaan meeshan ku siinaynaa kan cabirkiisa waxaan ka dhiganaynaa 15 xoogaa yar qalad yar ay dhacay dib ugu soo laabo click ku sii waxaad leedahay 15 kadib waxaan leenahay okay xoogaa yar marka kani shapekan midka buttonka yariiska waaye
color gooni inaan siino ayaa wanaagsan adiga color noocaas oo kale ayaan siinaynaa waa buttonka yariiska oo meeshan la socon lahay waa meeshan oo la socon lahay waaye kadib buttonkan hadeertan aan sameeyna asagana waxaan siinaynaa control J ayaan leenahay shapeska aan dooran horta 15 aan ka yara dhigno 12 12 markaan doorano kanna aan ka yara dhigno 12 sida u jeedo marka kani markaan bedelna colorkiisa ayaad ogaanaysaa click aan siino xoogaa yar color oo noocaas oo kale noo yar door marka madowgan dhexda isku yara aadana waan isku yara aadinayna labadooda ayaan dooranaynaa select anagoo control ka hayno kadib marka waxaan leenahay move toolka centerka noogu yara aadi sidaas ayaan ku sameynaynaa markaan sidaan aan sameyno haddii aad rabto drop shadow waad ku yara darsan kartaa kaliya markaa hadeertan waa soo drag gareynaynaa waxaan yara keenaynaa qeybta iyo inta ayaan yara keenaynaa sida ujeeda hadeertan way ku yara aadan yahay qaab sidaas oo kale ayaan u sameeyey sidoo kale marka haddii aad rabto marka buttonkan aan sawirka aan dhexgeliyey kaliya shapekan ayaad dooranaysaa adigoo shiftiga haysid kadibna click ayaad ku siinaysaa markaa idin dhahayo waa khasab inaad sameyso new layer waa midaan oo kale wuxuu ku yar sameynayaa halkii layer ayuu sheebo fara badan ka sameynayaa marka waa error marar badan dhaca control Z aan dhahno kaliya hadeertan aan dhahno new marka lenskan kuwan kan waa midka hadda aan sameyno oo cusub kuma yara dareeno intan waa isku yara qabanayna group ayaan ka dhigaynaa control G waxaan u bixinaynaa line move lineka xoogaa yar dhaqaaqay kadib kan waa shapekii aan rabno hadeertan oo sawirka dhexgalaya inaan sameyno waxaan leenahay shapeka markaan sidaas u sameyno xoogaa yar drop shadow ayaan ku yara dareynaa hoos ayaan u sameynaynaa kama badinayno isagana markaan sidaas aan sameyno kaliya marka hadeertan sawirka aan rabno ayaan soo dhex gashanaynaa markaan sawirka aan sidaan u keenno kaliya anagoo altiga hayno ayaa shapekii hadeertan aan sameynay iyo sawirka dhexdiisa ayaan klik ku siinaynaa marka hadeertan sidaa ujeedo shapeka ayaa sawirka noola dhexgelinaya waa shapekii hadeertan aan sameynay markaan sawirka aan soo dhexgelino anagoo altiga hayna ayaan inta imaanaynaa kadib hadeertan sawirka aan yareeno oo kaliya markaa hadeertan qeybtan iyo timeska dhib ma lahan Adobe After Effects ayaan ku sameysan doonaa aniga projectigan kan ayaan ku shaqeyn doonaa kaliya adiga marka kan waxaa kaaga yara dhiman tree lineska inaad u yara sameyso waxaan ka sameyn kartaa qeybtan iyo rectangle-ka waad yareynaysaa sidaasi ayaad u habeynaysaa marka qeybtan kale waxaan usoo gudbi doonaa dhanka iyo Adobe After Effects marka hadeertan sidaa ujeedo meeshan hadeertan boxkii aan rabnay waan ku yara sameysanay kaliya waxaad leedahay file kadibna waxaad leedahay save as meesha aad rabto ayaad projectiga ku save gareysanaysaa sidoo kale yaan ka ilaabin labadan xabo waa inaad u sameysataa group labada ayaad dooranaysaa adigoo controlka haya kadib marka waxaad leedahay control G group waxaad leedahay shape image ayaad leedahay shape image markaan sidaan aan u sameysano kaliya marka sida hadeertan ujeedo waxaan soo yara gashanaynaa projectiga markaas aan ku yara shaqeylayn aan rabno inaan aad iyo aad u adeegsano kaliya marka hadeertan waxaan leenahay laba jeer ayaan waxaan ka leenahay meeshan click waxaan yara tagaynaa meeshii aan ku save gareysanay projectigii photoshopka kaliya hadeertan sidaa ujeedo meeshan ayaan ku qortay projecti audio spectrum kaliya waan soo yar gashanayaa meeshan sidaad ujeedo wuxuu ku leeyahay import candy noocee ayaa lagugu soo gelinayaa waxaan leeyahay qaab compositionka iyo groupiska Adobe Photoshop markii la joogo group ayaa loo yaqaanaa laakiin markii inta la yar joogo wuxuu u yara kasayaa composition kaliya markaa hadeertan waxaan leenahay okay xoogaa yar wax yar ayuu qaadanayaa xoogaa yar kani qeybtan inta iska soo yara saarno maadaama wax walba oo aan taabanay inaad aragtaan ayaan doonayaa kaliya markaa hadeertani projectigan audio spectrumka ayaa waxaan yara keenayaa qeybta iyo timelineka marka hadeertan sidaa ujeedo qaab sidaan ah ayuu noogu soo bandhigayaa marka timekani hadeertan inta uguma baahni timekan ayaan ka saari doonaa marka projecti ama compositionkani ayaan furayaa markaan compositionkan aan furo qeybtan iyo time textiga aan ku yar qoray delete ayaan leeyahay waxaan rabaa texti gooni inaan sameeyo ugu hore marka waa in aad marka koowaad aad la socotaa codka aad soo gelin doonto inta daqiiqadood uu yahay waa inaad ku xisaabtamtaa ugu hore hadda anaga waxaan soo gashanaynaa cod marka meeshan sida ujeedo waa 12 daqiiqo iyo 52 second codkeena marka sidaad ujeedo waxyaabaha marka ugu horeys isbedelaya waa laynkan kaliya laynkani inta daqiiqadood waa inaad doorataa marka laynka sida ujeedo hadaa waxaan ku soo qoranay line move ayaan ku soo qoranay sida ujeedo waa laynkan dhammaan ayuu isla baxaya
marka laynkan waa inaan ka dhignaa 52 marka laynkan waa inaan ka yara dhignaa compositionkiisa waa inaan ka yara dhignaa 12 52 minute iyo 52 second waa inaan ka yara dhignaa kaliya lane move-ka ayaan dooranaynaa dushiisa ayaan waxaan leenahay right click iskana hifeeyo meeshan sida ujeedo sida inta ay tahay oo kale ayaa laga doonayaa waayo dhammaantan kuwan isma badbedelayaan kaliya marka intan ayaad waxaa gashanaysaa qaybta inta waxaa leedahay durationka and compositionkan u rabo waa intaasi control C iska redhe marka waxaa laga yaryaabaa mar un inaad u baahato kadib waxaa leenahay okay kan lane move-kani ugu hore marka lane move-ka markaan sidaan usoo furno compositionkiisa kan waa laba lane dhexdii iskugu jiri jiray laba color dhexd iskugu yari jiro waaye kan waa buttonkan yariiska inta kaaga soo yara muuqado marka kani ayaa waxaa leenahay control X lanekan gudaha ayaan ku baasti gareyn doonaa waxaan leenahay control V marka ugu hore marka meeshan sida ujeedo lanekani haddaan markaan photoshopka aan joognay waa tii aan idin soo dhahayay markaan photoshopka aan yara tagno lane move-ka markaan soo yara furno meeshan sida ujeedo shape-kani guduudka inta kaga yara muuqdo wuxuu ku yara dhex jiraa shape-kani madowga waxaa ka dambeeya lanekani guduudka shape madow ayaa ka dambeeyo wuxuuna ku dhex jiraa laneka guduudka shape-ka madowga dhexdiisa marka meesha ayuu kaaga soo qabanayaa ugu hore marka waxaad samaynaysaa kaliya si fudud ayaan rabnaa inaan u sameyno oo waqtiga inaan soo gaabina ayaan doonaynaa kaliya marka waxaa yara leenahay kani ayaad waxaad ku xiraysaa buttonka yar parent linkgiisa waxaad ku xiraysaa buttonkaasi yar in laga maamulo ayaad doonaysaa marka inta aad samayso kaliya waxaad leedahay P kadibna waxaad yara daaraysaa keyframeskiisa markaad keyframeka sidaan u daarto kaliya keyframeskaas ayaad waxaad yara geynaysaa qaybta dhamaadka ah kadibna kani ayaad waxaad leedahay qaybta inta ayaad usoo yara badinaysaa marka waxaad u malaysaa marka qaab aad iyo aad u qurux badan inuu ugu samaysmi doono marka sidaa ujeedo qaabkan ayaad u samaynaysaa gadaal ayaad u celinaysaa inta dhexdan ku socdo sidaan ayuu usoo socon doonaa kaliya midka dhexda guduudnaa ayaa waxaan ku xirnay midka yaraay si ay ayagana iskula socdaan qaab sidaan ayaa nagula sameeyey kadib marka midkeena weynaa markaan yara tagno meeshan sidaa ujeedo wuu soconayaa qaabkani ayuu u soconayaa marka sidoo kale hadeertaan codkii aad rabtay ayaad inta soo yara keensanaysaa oo codkaaga iyo daqiiqadaha way isla soconayaan sidoo kale timeka sidee ayaad meeshan usoo gelin kartaa oo time oo mar walba soconayo oo projectiga sizekiisana ku yara xiran kaliya marka waxaad yara leedahay tagasti ayaad dooranaysaa kadibna waxaad meeshan ayaad ku rurfanaysaa waxaad leedahay tagasti ever kadib waxaad leedahay colon ever hadeertan waxay kugu soo yara muuqan lahadahay projectiga ayuu ka dambeeyaa boqoraalka waad soo yara qaadaysaa qaybta hore ayaad sidaan ku keenaysaa sizekiisa ayaad dareynaysaa scale ayaad leedahay dhexda ayaan ku aadinaynaa scalekiisa weli wuu weyn yahay aan yareyno kadibna waxaad leedahay B oo centerka inaan keena ayaan u baahannahay timekan sidaa ujeedo wax daqiiqad hadda soconaya ma jirto daqiiqadan marka sidee ayaad u socodsiin kartaa kaliya koodkan ayaa waxaa idin soo dhigayaa qaybta descriptionka koodkan ayaan dhammaan koobiyanaya waxaan leeyahay control C notepadka ayuu iigu diyaarsanay text toolkii hadeertaan aan sameynay asaga ayaan furaynaa kadibna meeshan transformkiisa kama rabno waxaan rabnaa text kadib sourcigan anigoo altiga hayno ayaan click ku siinaynaa kaliya marka hadeertaan waxaa noo furayaa qayb kale meeshan sidaa ujeedo wuxuu kaaga doonaya inaad koodkii aad ku qorto waxaan leenahay control V basti ayaan ku leenahay kadib markaa caps loga si oo refresh uu kugu siiyo caps loga ayaad taabanaysaa kadibna waad kasoo yara baxaysaa meeshan sidaa ujeedo daqiiqad walbo wuu la soconayaa daqiiqad walbo meeshan sidaa ujeedo hadda waa 3 daqiiqo sidaa ujeedo qaybtan qaabkan quruxda badan ayaad u samayn kartaa marka koodkani tagastiga ayaad samaysatay kaliya iligtaas ayaad furaysaa tagastigiisa ayaad furaysaa meeshan source tagastiga adigoo altiga haysid ayaad kali ku siinaysaa kadib meeshan inta markuu kuu soo qoro koodkan aan qaybta hoose kusoo dhigi doono ayaad basti ku yara leedahay sidaa ujeeda qaabkan quruxda badan ayuu kuugu soconaya sidoo kale haddii aad rabto qoraalada inta tagasti kaliya ayaad samaysanaysaa oo qaab sidaas ayaad u samaysanaysaa haddii aad rabto marka sawirka inaad ka yara bedesho kaliya waxaad leedahay projectigii audio spectrumka ayaad furaysaa shape imageka ayaad furaysaa markaad shape imageka aad furto kadibna mar labaad inaad sii furto ayaad kaaga doonayaa marka meeshan waxaa ku yara jiro ellipsigan waxa waye micnaheeda shapeka uu ku dhex jiro waaye kanna waa sawirka marka sawirka ayaad off iska yara leedahay marka sawirkaasi aan rabno ayaan soo gashanaynaa sawirkaan rabno markaan inta keensano kaliya waxaan leenahay waan kusoo draagin garaynaynaa
markaan kusoo daraanga gareeno xoogaa yar size-ka aan yareeno sawirka p positionkiisa aan yara saxno marka sida u jeedo marka shape-ka kuma yara dhex jiro sidee ayaad u dhex gelin kartaa kaliya calaamadan tiida ku aadan ee maskiga ah ayaad klik ku siinaysaa sida u jeedo hadartan shape-ka ayaa lagu dhex gelinayaa sawirkaagana sidaas ayaad ugu badbedelin kartaa haddii aad imaado marka projectiga qaybtiisa weyn sawirkan hadeerta waa nagala bedelayaa sawirka aan rabno ayaa noola soo gelinaya marka ugu horeysa waxaan ku dhahay projectiga weyna ayaad furaysaa shape image-ka ayaad sii furaysaa ellipsiga uu ku jiro ayaad furaysaa ellipsiga iska dhaaf waa shape-ka marka sawirkan meeshan ku yara dhex jiro ayaa sidaas u bedelaysaa haddii aad videogan ka faa'iiday fadlan laagaree lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana uga yara faa'iidaystaan haddii aad nooga yara cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya calaamada subscribe-ka kadibna furanaya gambaleelka si ay kuu soo yargaaraan muuqaal walba aan soo gelino waana ku mahadsan tahay daabashada muuqaalkan inta badan janaalkan waxaan uga hadlaa arrimaha multimediaha sidoo kale dhammaantan waxaan doonayaa inaan product review inaan kusoo yara daro waayo agabiska aan doonaya qaar ka mid ah waan yar helay insha Allah marka waxyaabaha ugu wanaagsan aan isleeyahay dadka aad iyo aad ay u anfacayaan ayaan insha Allah waxaan ka soo sameyn doonaa product review marka intan aan kusoo gabagabeynaya muuqaalkeena maanta waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa inoo muuqaal kale guuleysta